بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan daawadayaal meel kasta oo aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka oo xilligan oo kale aad ka daawataan TV-ga Universal anigoo Cabdullaahi Axmed Nuur ayaa barnaamijka idin soo jeedinaya qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqon doona xubnaha labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan ka fariisan doona go'aankii dawladda ama xukuumaddu ay ka qaadatay arrinta Cabdikariin Qalbi Dhagax haddaba baarlamaanku ma ku qasban yihiin inay farageliyaan qaraarkii xukuumadda maxaase ka dhalan kara haddii xubnaha labada gole ay qaataan go'aan ka duwan kan dawladda falanqayn ayaan ku samayn doonaa qodobadeena kale waxaa ka mid noqon doona doorashadii madaxtinimada maamulka Hirshabelle ayaa dib loo dhigay oo ilaa muddo 4 cisho ah ayaa lagu daray haddaba maxay tahay sababta keentay dib u dhaca doorashadan waraysi ayaan idin hayaa qaybaha dambana waxaad ku daawan doontaan hadduu alla idmo dib u dhiska wadooyinka caasimadda ayaa dardar ku socda iyadoo toddobaadkan gudihiisa laba wado oo muhiima maamulka gobolka Banaadir ay dhagax dhigeen markale kulanti wanaagsan daawadayaal sabtidii sida la wada socoteen baa waxaa dib u dhac ku yimid kulankii golaha shacabka kadib markii kooramkii uu buuxsami waayay iyadoo arrintaasina ay eedeen ka dhalatay oo xubno xildhibaanada golaha shacabka ka mid ay xukuumadda u jeediyeen halka xubno kalena ay ku tilmaameen dib u dhaca kulanka baarlamaanka mid caadi ah oo mararka qaarna dhici jiray guddiga joogtada ah ee golaha aqalka sare oo maanta kulmay ayaa iyana go'aan ku gaaray in xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka maalinta berri ah hadduu alla idmo la horgeeyo arrinta la xiriirta Cabdikariin Qalbi Dhagax gaar ahaan go'aankii xukuumaddu ay gaartay waxaa arrintaasi ka hadlay gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ajendaha guddiga joogtadii uu ka hadlay waxa weeye ka doodista go'aankii xukuumaddu ay gaartay ee ku saabsanaa u gudbinta Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax u gudbintii Itoobiya ee xukuumaddu go'aankii ay ka soo saartay weeye kaas oo aan rabno inaan aqalka geyno oo aqalku ka doodo uu ka soo saaro go'aan sax iyo khalad wuxuu yahay go'aanka xukuumaddu Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya ayuu ahaa oo ka hadlayay maanta gabagabada kulan ay yeesheen guddiga joogtada ee aqalka sare oo ay kaga doodeen arrinta Cabdikariin Qalbi Dhagax iyo go'aanka xukuumadda kulanka golaha shacabka ayaa ina la filayaa in maalinta Arbacada ee soo socota isna uu qabsoomo iyadoo ajanduhu isla arrintaasi yahay haddaba arrimahaasi ayaan ku eegi doonaa barnaamijkeena dabagalka wararka ee caawa waxa ka dhalan kara waxaa telefoonka Canada ku jira Professor Xuseen Warsame qadka Skype-ka ee Finland waxaa ku jira aqoonyahan Maxamed Caalim labadiina waa idin ku soo dhaweynayaa barnaamijka dabagalka wararka ee caawa waxaan ku hormarayaa Professor Xuseen Warsame Professor Xuseen xubnaha labada gole ee baarlamaanka ma ku qasban yihiin inay farageliyaan go'aankii ay xukuumaddu ka gaartay Cabdikariin Qalbi Dhagax walaa horta waa salaaman tahay dadka dhegeysanayana daawanayana aad baan u salaamayaa iyagana baarlamaanku inuu ka doodo ama aqalka sareba ha ahaato ama ha ahaato aqalka kale inay ka doodaan xaq bay u leeyihiin inay oo ay yidhaahdaan ma sax buu ahaa mise qalad buu ahaa inay xaq bay u leeyihiin waxaan safilayaa shikiga iyo doodda wuxuu ka imanaya dadka shirku ka imanaya dad badan baa ka baqaya in shirka loo qabanayo in dawladda lagu rido marka haddii guddoomiyaha iyo guddigu intay shiraan guddiga ma garanaysaa ee xoghaynta ay shiraan ay yidhaahdaan waa ujeeddadu waxa weeyaan in laga doodo wuxuu ma saxaa ma khaladbaa sidee u dhacay sidee u sixi karaa ee ujeeddadu ma aha in dawlad la rido
وهذا الدولة الهدوء حدي ما قرنا يساووا جدول صحيح حق بيقوليهن أو مركز ضد لكن حق بيقوليهن كضودان لكن الجدول وين نقطة محو حقه محو دولة بنا سديبة يدو ولله تاجريه حدنا الله حلوج تاجي كرا إن لقى حد قوي marka iyaga oo xeyndaabka qodobkaasi ku ekaanaya ay xaq u leeyihiin inay ka doodaan sidaasaan u fahmo warkaan sidaasaan u fahmay xaq u leeyahay marka taana waxa keeni kara guddiga joogtada ee ma garanaysa inay marka hore yiraahdaan ajandaha loo tagayaa waa sidaas ma aha dawlad ridid ma aha mawsha dawladda laga keenayo waxa weeyaan mustaqbalka Soomaaliya arintana taabanaysa laga dooda weeyaan waay aqoonyahan maxamed caalin isla su'aashaasi baarlamaanku ma ku qasban yihiin inay farageliyaan go'aankii xukuumadda ee arrintan Cabdikariin Qalbi Dhagax la xiriirtay baarlamaanku way ku xaq bay u leeyihiin inay sharci dejinta xukuumadda wax go'aan kasta xukuumaddu soo saarto inay fiiriyaan inuu dastuurka waddanka waafaqsan yahay inuu waafaqsan yahay dhaqanka iyo diinta Soomaaliyeed marka arrinta muwaadinka ah in la baaro xukuumadda lagu celiyo waxay xukuumaddu aqoonsatay gixisnimo baarlamaanku kuma qasbana sharcina ma aha inay yiraahdaan xukuumadda ay mandate-ka siiyeen muddo 6 bilood ka hor ah ayaan mandate u qaadayna ama xukuumaddan burburinayna arrintaas waxay u eg tahay in ay qodobkii ahayd in shacabka Soomaaliyeed loo naxariisto in arrintu marka laga badbadinayo marka qodob ahaan xaq bay u leeyihiin xukuumadda in motion laga keeno waa laba arrimood xukuumadda motion laga keeno waa arrin u eg dabarjabin ummadda Soomaaliyeed lagu sameeyo way professor Xuseen Warsame haddii ay dhacdo in kulanka ugu horeeya dhaca isla maalintaasi ajanduhu ay sidoo kale qayb ka noqoto mooshin xukuumadda ku aadan miyaan xukuumadda cod loo qaadi karin horta wax kaga baarlamaanku xaq buu u leeyahay waxay doodaan ka doodaan oo ay xataa ka keenaan ma garanaysaa ay dawladda laftigeeda ka keenaan mooshin waxay odhan jireen xaq bay u leeyihiin waana yeeli karaan waxaas oo dhan laakiin waxaan ka hadlayaa waxayaan oday Soomaaliyeed ahaan uga hadlaya waxa weeyaan waxa hagaagsan ee maanta arrinta ku habboon weeyaan waxaan ka hadlayaa la iskuma hayo in khalad dhacay la iskuma hayo aniga dhinacayga kolba markay soo khalad dhacay la iskuma hayo waxa la furay dariiq aan jirin awal oo ah qof Soomaaliyeed oo korneyl ahaa in uu gacanta Itoobiya galo xeer inaga dhaxeeyay inaan sidaa yeela ahaa ma jirin aynu khalad dhacay la iskuma dawladana hoos martay arrintaas la iskuma hayo su'aashu waxa weeyaan arrintaas daraadeed miyaan dawladii markaa u baabiinaa mise waxaan dhahnaa waa sidee idinka noqotay oo guddi baan u saaraa baarista oo baaristaas oo odhanaysa la hadlaysa wixii baaraya sida u dhacay dabeetana sidii loo sixi lahaa arrintaas sida u dhici lahayd oo mid baan kugu yar dari walaaleena intaan arrinta ka bixi waa intaan jaalis welin baa laga yaabaaye qodobkeena sideedaad ee dastuurku wuxuu sheegayaa inuu horta qof kastoo Soomaali yahay oo u dhashay laakiin waxaa jiray qodob ahaa inay dawladda baarlamaanku inuu soo saaro sida lagu waayi karo ma garanaysaa jinsiyadda Soomaaliyeed marka iyadoo baarlamaanka soo saarin si jinsiyad lagu saari karo in qof Soomaaliyeed inta la qabto loo geeyo dawlad kale waa khalad oo iska muuqataa laakiin bal wixii ku khasbay siday u dhacday waxa inay baarlamaanku ka wada hadlaan soo saara sidayna u dhicin weeyaan ma ahayn jawaabta marka in qof muwaadin la dhiibo ma noqon kartaa in xukuumadda la rido bedelkeed maya waxayna hadda ku noqon waxa weeyaan waxa ka maqan meesha baarlamaanku wuxuu lahaa xeer waxa jira schedule 1D oo kamid ahaa dadkaas xiyaanu dastuur kamid ahaaye dastuur kamid ah oo oranayay qodobka 8aad waxa lagu dari doonaa baarlamaanku ku dari doonaa sida lagu waayo sidii shaqo amuran nooca sida lagu waayo ama qof sida haduu khalad galo qayr caadiya wax lagu hadii marka dawladda ay rumaysan tahay inuu ninkan khalad weyn galay waxay ahayd maxkamad in la geeyo maxkamadii wuxuu la geeyay marka sidii taa loo sameyn lahaa baarlamaanka laftigeeda waa ka wada hadlo oo yiraahdo khaladaad ka dhacay ee u saxnaa inay yiraahdaan baan ka doonaya laakiin imanka inay yiraahdaan dawladda baan hadda ridaynaa Cabdikariin wuxuu tari mayno oo Cabdikariin imanka soo wax lagu tari kara waxa weeyaan kow
in la qiro in si khalada loo geeyey gacantaas laba in dowladda laftigeeda lagu khasbo inay dowladda Ethiopia kala shaqeyso inaana Cabdikariin la ciqaabin in Cabdikariin ma garanaysaa loola dhaqmo maxaabiista caadiga loola dhaqmo in xataa ay ma garanaysaa xal mas'uul iyagu ku sameeyaan waxa la yiraahdaa sidee xeega loo ilkana ku nabad galaan laakiin waxaad qabtaa in kiisku uusan dhamayn in xukuumadda ficilka ay samaysay jawaabteeda looga dhigay iyada la rido ما إن الريد موجولي هذا إن إلى ما هو سومالي أقدر ما عد كريم أقدر ما واحد واي أجرته واي بروفيسور حسين يقول وكوسو لابنيا إسلا سؤال شاسي محمد عالن جواب ما لوجا دي كرا تلابة دي حكومة دواي كوديبت عبد الكريم قلبي دجاح بدل كذي إن حكومة دي بلوواي أرنت هذا جرتا حكومة دوغان كوسو صارتي arrinta ninka muwaadinka ah wadanka Ethiopia lagu wareejiyay isagoo ninka muwaadinka ah xukuumadda u qaatay inuu urur siyaasi ka tirsanaa oo la dagaalama dawladda Ethiopia arrimahaas oo dhan baarlamaanku xaq bay u leeyihiin wax ka bedelaan inay muwaadinka Soomaaliyeed yaa muwaadin ahayn ururada siyaasiga ah hadda waxaad moodaa markaan dhageysanay xildhibaanada mucaaradka ahaa qaabka loo hadlay wax weey in Prime Minister cusub la magacaabo in motion la keeno in xukuumadda lagana noqdo waad la socotaa wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda barnaamij siyaasadeed bay qaadatay Soomaaliya oo 10 sanadood way ka soo daashay ilaa Cali Geedi ilaa hadda 7 Prime Minister ayaa wadanka laga caydiyay marka dadka Soomaaliyeed yaan wadada dhabta laga leexin hadday Prime Ministerka khayra meesha laga eriyo farmaajana wuxuu noqonayaa nin 4 sano fadhiida marka aniga falaqaynta ka hadlay waxa arrintu ma dhamaad leedahay in Prime Ministerka hadii meesha laga tuuro arrinta Soomaaliya way rajabeelaysaa way Professor Hussein Warsame hadii xubnaha labada gole ay qaataan qaraar ka dhana kii xukuumadda ay gaartay maxaa dhici kara baarlamaanku xaq buu leeyahay inuu taaqaato de waa meesha ugu sareysay horta sharci lagu sameeyo weeyaan Ethiopia iyo Soomaaliya waxa laga yeelayna baarlamaanka ayaa runtii inay iyagu soo saarana oo amino walaal ogow inagii Ethiopia wali meelan ku kala seexanay inaan heshiisnahay ma jirto saaxiibnahay ma jirto waxa inoo yaalay heshiis inaan colnahay oo 46 bilaamay 77 ku xigtay wali meel baarlamaankeenu uu ku saxay inay nabad inaga dhaxayso inaga Ethiopia ma jirto marka inay waxa ka shaqeeyaan oo ay yiraahdaan war qowmiyadeena baa la khatar ku jirta xiriirkii dawladda dhexdeeda ku jira inaga Ethiopia maxay noo yaalo soo saaraan sharciga iyagaaba looga marka waxaan qabaaba baarlamaanka waxa uu yaala umuro waaweyn oo ay ka seexasheeda qayb ku leeyihiin dawladdu ina khadanta la isma hayo baarlamaankuna hawlihiisiiba inuu gabal la isma hayo marka ahmuraha laga shaqeeyo hadii ay keenaan wax ka gooniya xaq bay u leeyihiin oo keeni kara sharciga dawladdu in la rido xaq bay u leeyihiin way keeni karaan marka maxaa dhici kara hadii ay dhahaan sax ma ahayn go'aankii ay gaartay xukuumaddu maxay tahay waxiga oo tilaabada la qaadi doono inay horta hadii ay yiraahdaan sidaas isku raacaan inay sax ahayn waxa aniga ila haboon inay iyagu ka shaqeeyaan sidii loo sixi lahaa wax loo sixi laakiin hadday yiraahdaan dawladdan ridaynaa de fawdun ba bilaamaysa waa halkii jawaabtii hore aan ku siiyo madoonaysa fawdun ba bilaamaysa Soomaaliya way dawlad seegi maantana meel aan dawlad saagno joogno dirtaan waxaan ku helay ku soo marmarsiinay in maanta meel dawlad haddana aan ku seegno ma joogno taas baa dhici doonta inuu u tarimayso oo uga sii daroon Soomaalina wuxuu tarimayso oo uga sii daroon waay maxamed caalin mas'uul su'aashaasi hadii ay qaataan xubnaha labada gole qaraar ka dhana kan xukuumadda waxa dhici kara aragtidaada wax dhici kara ma jiro waxa jira baarlamaanadii ka horeeyay heshiisyo badan inay example marka hadda ka hor gudoomiyaha gobolku soo saaray in dadka Muqdisho lagu xukumo teesar milshibiyaha baarlamaanku way diideen heshiiskii badda aad ogeyd baarlamaanku way diidi karaan baarlamaanku waanu ka daalay Prime Minister shaqada laga eriyo iyo wasiiro iyagoo 6 bilood shaqada wada waxa weeye arrinta socota dadka idaacada daawanaya khadka laga leexin sharciga waa la diidi karaa baarlamaanku way la xisaabtami karaan wasiirka arrimaha dibadda wasiirka amniga taliyaha nabad sugidda arrinta fashilka wuxuu hadii xukuumad khayr meesha laga tuuro farmaajana macnaha uu madaxweyne ka yahay wax macna ma si ahaanayso labaduba khayr wadan baa laga wadaa
fashilaadii ku dhacday madaxdii hore unbaa imanaysa marka anigu marna ma ogoli in dadka Soomaaliyeed la khaldo taliyaha nabi sugida loo yeeri karaa dadkii arrintan ka dambeeyay muwaadinka lugooya loo yeeri karaa safiirka wadanka Ethiopia u fadhiya Soomaaliya wadanka laga cayrin karaa oo arrimo badan baa jira ee xukuumadda haddii wadanka laga tuuro oo barnaamijka siyaasadeed ee 6 bilood la fashiliyo wadanka Soomaaliya aqal madow buu galaya 10 sanadood baa waxaan ku jirnay prime minister xilka laga tuuro way gabagabadii Professor Hussein markaad eegto saameynta ay arrintan ku yeelatay dhammaan dawladda maxaa loo baahan yahay maxayse tahay waayo aragnimada dhinaca kale loo baahan yahay in laga dhaxlo arrintan waa su'aal aad u wanaagsan waana su'aasha runtii ay tahay in laga hadlay tahay weeyaan horta dawladda cadaadis badan baa haysta cadaadiskaas ku haysta gobolka laftigiisa ka haysta ama Ethiopia ama Kenya ama inay iyaduna la caawiyo oo laga caawiyo argagixisada iyo noocaasa iyaduna ay dhinaceeda inteedii hawsheedii ay qabsato oo ay ka caawiso marka waa halka ay dawladdu ka jilicsan tahay ee ayna oran karin wardaanu kii aad u maleynaysay argagixisada ku keeni maayo laakiin kii aan u malayn argagixisada ii soo qabo oo ka adkaanaysa haddana dhinacii kale waxa taagan micnihii Soomaaliga ereyga ah ayaa taagan oo dawladda haysata labaad waad ogtahay oo dhinacii kale waa kii dawladda khaliijku ay magaranaysaa yiraahdeen kala doorta Qatar iyo Sacuudiga taa laftigeeduna waxay ku reebtay sabab wati dhexdhexaad ka noqoto waxay ku reebtay talay ku reebtay marka waxaas oo dhan dawladda isku biiray oo confusion ku jirtaa waxa loo baahan yahay runtii inaga laftigeenu bal inaan dawladda ka taageerno oo arrinta uga noqono heel oo barashar badan bay ku jirtaaye sidii umuuraha mawjadaha looga tacaali lahaa baarlamaankuna ka caawiyo dadka dibadduna ka caawiyo laakiin maalinta maalin aan ka shiro dawladdii ma ridnaa mise ma ridno ma joogno haddii la yidhaahdo waya dabcan de baarlamaanku markay kulmaan waxay u baahnaan doonaan jawaab ugu badnaan inay bixiyaan arrintan ka bixiyaan haddiiba aanay noqon in xukuumaddii meesha laga saaro yay tahay in baarlamaanku ay shaqo ka qabsadaan horta kulli aan ka filayaa baarlamaanku siyaasadeed ayaa badanaa jira oo filimaayo inay taa isku diyaan waa laga doodi laakiin waxa dhacay filimaayo inay ka dood su'aashu waxa weeyaan maxaa laga yeelaa khaladkii weeyaan waxa weeyaan baarlamaanku waa inuu guddi saaraa guddi ay yiraahdaan guddi baarlamaanada dhan way sameeyaan xaqiiqo raadisa oo yiraahdaa arrintan istay ku dhacday oo dawladda dawladdii laftigeedu u furantay buugga u furaan wax walba nabad sugidda la hadlaan cid walba la hadlaan dawladana ay iyagu markaa report ku soo celiyaan baarlamaanka oo ay report ku sare dawladana reportadaasi ay noqdaan mid lagu saxayo sharci dejinteena iyo magaranaysa dawladda fulinta iyo maxkamadaha la soo lagu xoojiyo noqdo marka waa in looga faa'iideystaa lagu dhiso institutionskii naga maqnaa in lagu dhiso waa in looga faa'iideystaa way maxamed caalim isla su'aashaasi markaad eegto saameynta arrintan ku yeelatay dhammaan dawladda aragtidaada waxa loo baahan yahay iyo way aragnimada ay tahay in laga dhaxlo arrintan way aragnimo badan baanu haysay way aragnimo badan ciidamada shisheeye baarlamaanku waxay ka keeneen wadanka la keenayo motion bay ka keeneen arrinta badda motion bay ka keeneen arrinta waraaqaha aqoonsiga motion baa laga keenay waa mushkiladu waxa weeye prime minister kasta barnaamijkiisa siyaasadeed marka uu keemo beelaha Soomaaliyeed arrintan waxay u eg tahay khaladka way galeen dawladdu madaxweynaha taliyaha nabad sugidda ee khalad adduunyada dhan baa gasha ee waxay moodaa mucaarad ujeediyo badan leh oo dawladda iyo xukuumadda inay fashiliyaan inay jaaniskan xoojinayaan marka waxa laga dhaxlaya waxa weeye haddii 4 sano xukuumaddii ugu horeysay ay fashilanto wixii aan ku baranay reer wasaare saacid bay noqonaysaa oo ah dawladda kuwaala tagaleed uu saacid keenay markii la fashiliyay maxaa ka dambeeyay waxa ka dambeeyay 4 sano oo ahayd motion iyo in la haysto marka motion ku xiga waxa weeye marka khayran la eriyo waa motionka madaxweynaha waa sida hore u naqaanay way gabagabada ayaan soo gaar ugu dambeyntii su'aasha ugu dambaysa si kooban ayaan rabaa inaad iga jawaabtaan labadiinaba haddii fadhiga baarlamaanka ugu horeeya ama golaha shacabku ay go'aanka hadda aad walwalka ka muujinaysaan ee ah in xukuumadda la rido ay gaaraan maxaa idin muuqda waxaan aadayaa Xuseen Warsame runtii dee horta nasiib daray noqonayo haddana dee halkii lagu laynooga bartay ee baarlamaankeenii iyo dawladeenina looga bartay ee ah had iyo jeer inay iska keenaan motionadaas ay keenaan
in dawladdu dhacdo dawladdu 3 bilood qaato in dib loo soo dhiso markay meesha socod baradkuna haddana noqoto haddana mid kale laga keeno haddana ay dhacdo ayuu baa dhici doonta marka waxa ka iman doona cawaaqib xumo xoog leh iyo niyad jab ayaa ka iman doona talabaad arrintan dadku waa ku kala qaybsan yihiin oo aad buu qayso dad badan baa xataa rumaysan in dad dawladdu sax tahay rumaysan dadka badankiisa waxaan qabaa inay khalad ahayd bay rumaysan yihiin laakiin haddii taa lagu daro in dawlad baa la rideelaa waxa laga yaabaa inaan kusii kala qaybsano oo arrintaasi keento kala qaybsanaan xoog leh dad badan baa iman kale hor waxaan dadkan qaylayaa daacadka ma aha waxay doonayaan inay ku gaadhaan inay iyagu dawlad noqdaan in umuuro noocaas ayaa dadkooda socdaa shikigaasaa sii badanaya taasna waxay keenaysaa inaan innagii iska hor nimaadno arrintaas khalabka si loo siclaa laga fikiro laakiin dawlad la ridaa xal maaha waa isdhiibid waaye maaha xal maxamed cali isla su-aashaas ugu dambeyn si kooban waxa weeye dawladaha khilaafka siyaasadeed ka jira ee Afrika ee dagaalada sokeeye soo midnay prime ministerka iyo xukuumaduhu sida Soomaaliya ee 10 sano 2007 ilaa 2012 toddoba prime minister baan soo maray oo madaxweynaha farmaajo ka mid yahay haddii arrintan ay dhacdo in prime ministerka shaqada laga eriyo waxaan muuqata in beelaha Soomaaliyeed ku adkaanayso in prime ministerka la soo magacaabo inay ku adkaanayso in madaxweynuhu sii joogo inay ku adkaanayso wasaaradaha hadda la haysto in la ku bedelo marka kulli anigu waxaan waaye aragnimadii 10 sano ay u baan ka hadlay oo ah war dawladnimo si lagu hela way adagta wada adag baa loo marayaa xasilinta muqdisho socota dadkii Soomaaliyeed baa socdo oo maanta ogol inay dhageystaan xukuumadoodii yaanan sharciga iyadoo loo mari karo meel wanaagsan yaan xukuumad lagu ordin iyo xil wixii ciqaab ah guddigii in loo saaro arrintan lagu dhameeyo qaabka adduunku dhameeyaan oo ah yaa eedan iska leh haddaanu madaxweynuhu yeelan prime minister ku yeelan oo waxan ay koox soo abaabushay oo safiirka Ethiopia wadanka Soomaaliya u fadhiyo oo iskandal la damacsanaa dawladda soo arrintaas ma aha inay baarlamaanku soo cadeeyaan marka waxaad qabtaa adigu caalim waxaad qabtaa shakhsiyaadka gacanta ka geysta arrintaasi hadiiba wax la sameeyay in iyaga tilaabo laga qaado iyaga talaabo laga qaado yaan xukuumad iyo madaxweyne barnaamij siyaasadeed leh dagaalkii Ciraaq baa lagu khaldamay madaxda adduunka oo dhan way qaldantaa maxaa xukuumadda loo aadaya oo barnaamij shaqada looga eriyaa iyadoo la arki karo in safiirka Ethiopia xiriirka mataqaan wadanka laga saari karo iyadoo Ethiopia xiriirka loo jari karo iyadoo madaxweynaha digniin loo qori karo laga yaabay caalim ummadda badbaadiyaan caalim laga yaabay in safiirka Ethiopia wadanka laga saaray inuu suurtagal tahay inuu dhibku meesha uu joogo ka sii bato aad baad u mahadsantihiin maxamed caalim iyo professor Xuseen Warsame labadiina baan idinkaga mahad celinayaa ka qaybgalka barnaamijka caawa magaalada Muqdisho waxaa dib u dhismaya wadooyinka caasimadda gaar ahaan wadooyinkii ku burburay colaadihii wadanka ka jiray sanadihii aynu soo dhaafnay waxaana toddobaadkan gudihiisa la dhagax dhigay 2 wado oo ku yaala caasimadda iyadoo labadaasi wado ay kala yihiin wadada General Kaahiye ee airportka gasha iyo wadada kale ee General Daawud ee ka bilaabata taalada daljirka Dahsoon maamulka gobolka Banaadir ayaana howlahaasi wada si dib loogu soo celiyo socodkii wadooyinka magaalada Muqdisho waxaana aad ay dadku u soo dhaweeyeen arrintan dhagax dhigga wadadan General Daawud oo ahayd wada burbur xoog leh oo ka muuqdo iyadoo wadadaasi ay isku xirto ilaa isgoyska baar ayaan ilaa dhinaca kale wadada warshadahana ay gasho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaana maanta ka qayb galay isagoo si rasmi ah u dhagax dhigay wadada General Daawud waxay leeyahay mahadiisa in maanta ay noo suurta gasho in aan dhagax dhigno ama aan bilowgii in dib u dhisidii ama dib u dayactirtii wadadii labaad ee bishan gudaheeda waxay ahayd 6 bisha markaan dhagax dhigaynay wadadii ku taala degmada Xamar Rajab ee laanta General Kaahiye ee ka soo baxaysa airportka ee ku soo dhacaysay wadada General Kaahiye isla bishan gudaheeda oo hadda maanta bisha ay tahay 10 waxay leeyahay mahadiis markalena haddana dhagax dhigayna wadadii General Daawud oo wada taariikhiya oo istaraatiiji ah runtii oo taalada qiimaha badan ee daljirka Dahsoon hadda ka bilaabanaysa oo na ku dhamaan doonto insha Allah meesha ay gaaraysan ay tahay baarayaan ee wadada Sodonka
ujeeddadaana waxay ka mid tahay horumarka laga samaynayo dib u dhiska iyo wadooyinka dib loo dayactirayo ee gobolka Banaadir wada shaqaynta sidii maalin dhawtaan dhahay ee kala dhaxaysa gobolka Banaadir ilaa heer degmo iyo dadka ku nool gobolka Banaadir ee muqdishaawiyiinta ah ee nagala qayb qaata runtii inaan bilicdan soo celino marka insha Allah waa sii wadi doonaa waxaan rajaynaynaa muddooyinka soo socda dhawaan wadadan ku dhamaato horumarkaana waa sii wadanaa in bil walba aan ku dadaalno intii suuragal ah ee karaankeena ah wadooyinka istiraatiijiga ah ee u baahan dib loo soo celiyo waxaa xusid mudan wadada General Daawud sanooyin fara badan in aan la isticmaalin ee gabi ahaanba go'nayd oo aan la mari karinba hadda xitaa meelaha qaarkood ay boholo ka sameysmay xitaa aan gabi ahaanba la mari karin marka anagu baahideena waxaan ku saleynaa horumarkeena iyo dib u dhisku waxaan ku saleynaa baahiyaha ama mudnaanta sida ay u kala leeyihiin wadooyinka dadka ay u baahan yihiin aan qiyaaseena inay muddo go'nayd oo muddo aan la mari jirin inaan dib loo dayactiro marka waxaan ku boorinayaa oo aan fursadan kaga faa'iideysanaa dadka muqdishaawiyiinta gaar ahaan ku nool labada degmo ee ku kala nool gaar ahaan degmadan ee Boondheere iyo degmada dariska la ah ayadana hadda dhinacan kaga dhaw degmada Warta Nabadda ama Wardhigley in labaduba ay ka qayb qaataan bilicda wadooyinka iyo nadaafadaba oo ay ku dadaalaan wada marka la dhisay marka dib loo dayactiro dadka ayaga iska leh dadka maadaama iyaga iska leeyihiin waxaana ay tahay adeegii dadka lagu celinayay canshuurtii la qaaday dadka la dareensiyo wixii ayaga ay bixiyaan in dib loogu dayactirayo marka waxa aad bixisay oo lagugu soo celiyay lagugu dayactiray waajibka ugu horeeya ee ku saaran waa inaad ilaalisaa ama aad nala ilaalisaa oo guud ahaan u wada ilaalinaa hay'adaha amniga ayaga sidoo kale hay'adaha amniga waxaan halkan ugu dirayaa hay'adaha amniga idinkoo aad iyo aad u mahadsan amnigana ku dadaalaysaan bilicda magaalada waxaa ka mid ah wadooyinka aanan jaqafyo la dhex dhigin ama aan dhagaxyo la dhex dhigin ayadoo wadada la dhiso qurux badan haddii amniga la ilaalinayo si qurux badan amniga iyo waxyaabaha loogu talagalay ee joogsiga ama tabeelooyinka loogu talagalay in lagu diyaariyo oo aan wadada la iska dhex dhigin waxyaaba bilicda baabi'inaya marka mar labaad mar saddexaad waa mahadsantihiin ilaahay baa mahad iska leh gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed ayuu kaasi ahaa doorashadii madaxtinimada maamulka Hirshabelle ee la filayay in ay dhacdo 12 bishan oo ku beegan maalinta Talaadada ah ayaa dib loo dhigay iyada oo ilaa muddo 4 cisho oo kale dheeraadana lagu daray waxaa telefoonka magaalada Jowhar ku jira gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle mudane Sheekh Cismaan Barre Sheekh Cismaan haddii aad maqli karto maxay tahay sababta keentay in dib loo dhigo xilligii lagu ballamay in doorashada madaxtinimada la qabto bismillahi raxmaani raxiim waxaad ogtahay in 29 bishii lasoo dhaafay la magacaabay guddiga doorashooyinka waqti kooban waxay qabteen shaqo aad u fara badan marka waqtigii oo aad u yaraaday iyo codsi ka yimid musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimada iyo guddiga doorashooyinka oo iyaga laftoodii ay waxyaabo yar ka dhinaadeen codsiyadaas oo isbiirsaday ayaa baarlamaanka lasoo gaarsiiyey sida sharciga ah 30 cisho gudahood waa in lagu doorto madaxweyne mar haddii waqtiga u gaabtayna mar labaad waxaa loo baahday in lagu daro waqti kooban oo aan ka badnayn 4 maalmood si loo sharciyeeyo marka oo aan dastuurka loo jibin waxaa shir sugid maanta ama kulan baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle wuuna ansixiyey cod aqlabiyada ayuu wuxuu ku ansixiyey 4 maalmood in lagu daro doorashooyinka oo ilaa 16 la geeyo ilaa 16 la geeyo si aysan u qaf muxuu si oo yaani degan oo la wada qanacsan yahay ay muxuu ahay u dhacdo doorashadaasi aad iyo aad muxuu ahay adan u faraxsanahay si ay wax u socdaan way akalo way halka ka sii wad Sheekh Cismaan waxaan kaloo xusid mudan maanta waxaan kulan isugu yimi wafdi ka socda dowladda dhexe wasiir dowlaha arrimaha gudaha uu hogaaminayay iyo dhammaan guddoonka baarlamaanka iyo siyahayaha xilka madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan musharaxiinta shir ay isugu yimideen arrinkaasu yani loo wada hadlayo sida nabadgelyada iyo in habsan socodka doorashada laga wada qayb qaato waa la isla afgartay marka waxaan ku sheegi karaa in hawsha meel fiican way Sheekh Cismaan dhaqaale ahaan iyo farsamo ahaan diyaar muutin idinka iyo guddigaba
inaad qabataan doorasho xalaal ها hirshabeelle waa isku tashatay shacabkeeda iyo baarlamaanka iyo dhammaan madaxda cid ilaa hadda madaxta kuleysa ama gacanadasiisa ma jirto haddii ay tahay muxuu ahay agabkii doorashooyinka iyo amniga iyo maxay ahayd wixii kaloo doorasho looga baahnaan karo waad fahmi kartaa hirshabeelle waa dowlad goboleed curdun ah sanad gudihiisa waxay maraysaa laba doorashadii hore madaxweynihii hore iyo guddoonka lagu doortay iyo ku-xigeenkiisa iyo doorashada labaad in badan muxuu ahay dhulka hadda dowlad goboleedka hirshabeelle uu kala xirahay cadow ayaa meelo badan haysa degmooyinka dekadii uma furno marka waxaad dareemi kartaa dhaqaal ahaan iyo da ahaan intuu statecaas jira marka iyo doorashadaas sida loo qabanayo degdega ah oo weliba bil gudaheeda inay ku dhacda ayaan muxuu ahay rajeyn haddii ilaah yidhaah aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle sheekh cusmaan barre oo telefoonka jowhar iigu warramay qaybihii dambe ee barnaamijka ayaanu soo gaarnay magaalada beledweyne bartamaheeda waxaa maanta ka dhacay qarax uu fuliyey nin la sheegay inuu isku soo xiray walxaha qarxa kaasi oo isku qarxiyey maqaayad lagu shaaheeyey oo ku taala magaalada beledweyne waxaa la sheegay ilaa 4 qof inay ku geeriyoodeen qaraxaasi iyadoo dad kalena ay ku dhaawacmeen waxaana weeraradan ay ku soo aadayaan iyada oo ay qaar ka mid ah waxgaradka iyo siyaasiyiinta reer hiiraan ay saluugsan yihiin sida ay wax u socdaan gaar ahaan arrinta la xiriirta doorashada madaxtinimada ee hirshabeelle iyadoona halkaasi uu joogay maalmihii u dambeeyey madaxweynihii ay xilka ka qaadeen xubnaha baarlamaanka ee hirshabeelle guud ahaan barnaamijkii dabagalka wararka caawa waa naga intaa khaalid maki cabdiraxmaan ayaa dhinaca farsamada iga gacan siiyey tan iyo intaan barnaamijkan mid lamida kulmi doono waa anigoo cabdullaahi axmed nuur oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo